Assalaamu calaykum soo dhawaad asxaabta filimkeena waxa uu ku bilaabanayaa Iki oo ah arday dhigata dugsi hoose oo dheelis banooni waxa aynu u bixisay Ayub oo ah arday aydan cib oo fasalkeeda dhigto saaxiibadeed Alicia ayuu timaha ka jiidaya waxa uu ka qaadanayaa kubadda kadib Iki ayaa kaltuuras waxa ayna ka qaadanaysaa kubadda waa ayna ka dhalinaysaa sidaas ayna ku guuleysanayaan ayaka macallimadoodana waxa ay ogaanaysaa inuu dhex yaalo labadooda khilaaf kale ee uu sababay banooniga waxay ku dhaysaa labadiina waa inay heshiisaan oo iscaawisaan si aad ugu guuleystaan koobka madrasada maalinkii labaad markii ay imaadaan Ayub waxa uu isku dayayaa inuu ayada foodeeyo ayadana taleefanka ay ka dafaysaa waxa ayna suurka tusaysaa ardaydii kale asagana waa uu u booteynaya waxa uuna dhahayaa weyno taala aan banaanka tagno kadib markii iskuulka laga soo daayay asaga wadada ayuu u galayaa waa ayna isdagaalayaan ilaa markii dambe ay ka imaato macallimadana waa ay kala celinaysaa Ikina waxa ka dhuntay katiinadii ay wadatay kadibna saaxiibkeed Lawrence ayaa waxa uu ku dhahayaa aniga ku raadina ee guri iska aad markii ay guriga tagto hooyadeed ayaa arkaysa waxa ayna dhahaysaa waa liisoo sheegay in adiga iyo Ayub isdagaasheen ayadoo cashar ku akhrisanaysa hooyadeed agteed waxa sankeeda ka soo daadanaya dhiig hooyadeedna calaadul waxa ay geynaysaa dhakhtar waxa uuna arkayaa dhaawacyada jirkeeda ku yaalo waxa uuna weydiinayaa inay jug soo gaartay iyo in kale kadibna waxa uu ka qaadayaa dhiig baaritaan ah ayadana waxa ay ku laabanaysaa iskuulka Ayubna waxa uu ogaanayaa Iki inay isbitaal u gashay asaga dartiisa markii iskuulka laga soo baxo ay u imaanayaa waxa uuna siinayaa katiinadeeda waa uuna ka tegayaa ayada markii ay guriga tagto waxa ay dareemaysaa wareer laakiin ayada ma danaynayso maalinkii xigay ayadoo joogta iskuulka waxa uu imaanaya waalidiinteeda si ay ugu wadaan isbitaalka aynu u soo ogaadaan natiijada baaritaanka dhiigeeda waxa ayna la kulmayaan dhakhtarka daaweyn lahaa Iki waxa uuna ku dhahayaa waxa ay ugu yeeri kartaa shaarbactiir maxaa yeelay aniga waxa leeyahay shaarbada dheer ayadana waxa ay weydiinaysaa kansar ma qabaa mise maya asagana waxa uu ku dhahayaa waa laga yaabaa inaad qabtid aniga waxa la keenaa caruur badan oo ku dhacay kansarka 80% daawada aasiya waa ay ku caafimaadaan waxa uuna bilaabayaa inuu ayada u sharxo in uu ayada jirkeeda soo galay shay aan ka tirsaneen waxa uuna ku dhahayaa difaaca jirkaaga waa uu sareeyaa waana ka adkaa kartaa cudur kasta oo soo gala jirkaaga kadibna waxa uu sheegayaa inuu rabo inuu baaro dhuuxa lafaheeda علشان si uu ogaado nooca kansarka ee haya ayada kadib markii uu dhakhtarka suuxiyo uu ka qaadana dhuuxa waxa uu u sheegayaa inuu ayada ku dhacay kansarka dhiiga ee laazim tahayna inay joogto isbitaalka inta laga daaweynayo aysan aadi karin iskuulka ayadana waa ay ka murugoonaysaa midaas ma rabto inay isbitaalka joogto laakiin waa ay ku qasban tahay inay isbitaalka joogto inta laga daaweynayo kadibna waxa uu imaanaysa kalkaalisa Inji waxayna u kaxeynaysaa meesha ay joogaan dadka qabo cudurkeeda oo kale waxay arkaysaa cunug yariis ah oo ku ciyaaraysa tusbax dheer waxa ayna dhahaysaa waa maxay kalkaalisadana waxa ay ku dhahaysaa cunug kasta waxa uu haystaa tusbax daawo kasta uu qaatana hal xabo ayuu ku ridayaa ilaa markii dambe uu ka dheeraado tusbaxa dhinaca kale ardaydii ay isla dhigi jireen galaaska waxa ay isweydiinayaan ayada waxay ogaanayaan inay jiran tahay waxa ayna u rajeynayaan inay sida ugu dhaqsada badan ku soo caafimaadi doonto xataa Ayub waa uu ka murugeysnaa jiradeeda waxa uuna dhahayaa ayada waxa ay ka mid ahayd laacibiinta fasalkeena haddii ayada ay dheeli weysana waxa macquul ah inaan ku guuleyso weyno koobka isla waqtigaasna kalkaalisada waxa ay u tagtay Iki waxa ayna aragtay in timaheeda ay bilaabeen inay daataan kadibna timaha ay u jaraysaa waa ayna u gaagaabinaysaa Ikina markii ay maraayid isku fiiriso waa ay ku qancaysaa waxay maalmaha socdaan Iki tusbaxeeda waa uu sii dheeraanayay halka macallimada ay ardayda u akhrineysay fariintii ay soo dirtay Iki waxaana ka mid ahayd inay ayaka aad ugu xiistay kadibna macallimada ardayda qayb ka mid ah ay soo wadaysaa waxa ayna keenaysaa isbitaalka waxa ayna soo booqanayaan saaxiibadooda ardaydana say u sheekaysanayeen waxa ay dhahayaan waxa bilaaban raba tartanka kubadda cagta ee ayadana laazim tahay inay dheesho si ay u guuleystaan ayadana aad ay ugu faraxsaneed soo booqashadii ay soo booqdeen asxaabteeda sidoo waqtiga u socday waxaan ogaanaynaa in ayada xaaladeeda aad u sii xumaatay timaheeda oo dhanna waa ay daadanayaan daawada kiimikada ay qaadanaysa darteed bulka ayay gashanaysaa markii ay aragtay inaysan ku qurxooneen waa ay tuuraysaa markii ay xaaladeeda xoogaa wanaagsanaatay waxa ay aadaysaa madrasada si ay asxaabteeda u booqato ayaka dhanna waa ay ku farxayaan soo laabashadeeda ayadoo dheelays oo faraxsan waxa ay hal mar iska siibaysaa koofida ardayda oo dhanna waxa ay la yaabayaan madaxeeda ugu dambeyntiina dareenkooda ay qarinayaan si ayada ay u dareensiinin kadibna ayaka ay raacaysaa waxa ayna la dheelaysaa kubad ciyaartii oo socota ayay hal mar wareeraysaa waa ayna dhacaysaa wayna awoodi weehe inay sii dhammaysato ciyaarta maalmaha ka mid ah macallimada waxa ay u soo kaxeynaysaa ardayda oo dhan jaamacadda ay mustaqbalka ay geli lahaayeen Ikina waxay arkaysaa hal mar waxa darbiga ku suran waana inay mamnuuc tahay in lala gala koofi mid ka mid ah ardayda foodad badan ayaa ayada foodeynayo waxa uuna ka siibayaa koofida kadibna wiilka Ayub ayaa isku taagay waxa uuna ku dhahayaa u celi koofideeda asagana waa uu celinayaa waa uuna raali gelinayaa markii ay jaamacadda ka soo dhamaadeen ayada waa ay soo baxaysaa waxa ayna u imaanaysaa Ayub wayna u mahad celinaysaa kadibna ayada waxa loo soo celinayaa isbitaalka waxaan arkaynaa in tusbaxeeda uu isbedelay dhakhtarka ayaa u imaanaya waxa uuna la socodsiinayaa xaaladeeda ayadana sharad ayay la gelaysaa waxa ayna ku dhahaysaa haddii aad awoodi weysid in ay daaweysid jaarbaha ayaa iska xiraysaa kadibna asxaabteeda ayaa soo booqanayaan waxa ayna u keenayaan bisadeeda waxa ayna ugu sheekeynayaan ciyaaraha meesha ay marayaan waxay kaloo u sheegayaan inay dalxiis aadi rabaan waxay maalmaha socdaan hooyadeed waxa ay jiifanaysaa dhinaceeda aad ayayna ugu murugoonaysaa xaaladda cunugteeda
asxaabteeda. dhakhtarka ay u tagaysaa waxa ayna ku dhehaysaa farxad iyo reereen ayaa dareemo haya, waxaana rabaa inaad dalxiis u raaco asxaabteeda. asagana waxa uu ku dhahayaa waa u raaci kartaa. ayadana aad ay u farxaysaa maadaama ay isbitaalka ka baxayso ayna raacaysa asxaabteeda. dalxiis ayay aadayaan, ayaka dhanna waxa ay bilaabayaan inay dheelaan. ikina waxa ay ku dhuumanaysaa geed korkiisa. markii hoos ay soo fiirisana waa ay wareeraysaa, waa ayna awoodi weyhay inay soo degato, laakiin ayuub ayaa ku caawinaya inay soo degato. waxa uuna ka raaligelinayaa inuu kusoo booqanin isbitaalka. waxa uuna ku dhahayaa aniga ma jecli isbitaalada, maxaa yeelay walaalkiisa ayaa ku dhintay kadib markii uu hal sano ku booqanayo isbitaalka. markii ay isbitaalka ku laabato, dhakhtarka waxa uu ku dhahayaa baaritaankii ugu dambeeyay aa sameynay waxa ogaanay in kansarka uu u gudbay maskaxda, ayna adag tahay in la daaweeyo. dadaalkiisa ugu badanna uu bixin doono si uu u daaweeyo, si uu sharbiisa ugu badbaadsado xiiritaanka. kalkaalisada ayaa u imaanayso si ay daawad u siiso, ayadana waa ay nacday daawooyinka oo dhan. intay xanaaqda ayay waxa ay jaraysaa tusbaxeeda, sidoo kalena waa ay diidaysaa in la saaray raajada, ilaa markii dambe ay kalkaalisada ka dejiso. asxaabteedana waxaa loo sheegayaa in xaaladeeda ay xumaatay, aysan kasoo qaybgeli dooninna kubadda. ayakana waxa ay ku fikirayaan inay dhiman doonto, aysanna mar dambe arkaynin. kadibna maalin waxaa usoo galaya dhakhtarka, waxayna arkaysaa asaga oo soo xiiray shaarbihiisa, waxayna saas ku ogaanaysaa inuu ku guuldarastay daaweynteeda, ayna mar dhow dhiman doonto. maclimadan ardayda waxay u sheegaysaa inaysan macquul ahayn inay kasoo baxda isbitaalka, waxayna dhehaysaa waxaa rabnaa qof aan ku bedelno booskeeda. kadibna Alicia waxay dhehaysaa aniga ayaa dheelaya booskeeda, waana sida ayada u ballan qaaday. kadibna Ayuub ayaa waxa uu dhahayaa macquul miya xataa inaynan daawato, xataa haddii aan kusoo qaadna ambalaasne. maclimadan waxay ku dhehaysaa macquul maaha inay kasoo baxda isbitaalka. Ayuub iyo Lawrence waxa ay go'aansanayaan inay aadaan isbitaalka, ayna kala hadlaan dhakhtarka ambalaasta. asagana waxa uu ku dhahayaa xaaladeeda waa ay sii xumaanaysaa, xataa ayada ma awoodo inay dhaqdhaqaaqdo. fikrad ayaa kusoo dhacaysa markii uu isbitaalka kasoo baxo. maalinkii labaad ayay u imaanayaan, waxa ayna kaxeynayaan sariirteeda. waxa uuna ku dhahayaa waxaan ku wadnaa kadiis layaab leh. sariirtan waxa uu u dhigayaa daaqada hoosteeda. markii ay daaqada fiirisana waxay arkaysaa asxaabteeda oo dhan oo hoos ku dheelaayo. ciyaartana si toos ah waxa ugu tabinaya Ibrahim. taleefanka Ayuub ayayna ka dhigaysanaysay ilaa markii dambe ay indhaheeda ka daboolmeen, sidaas ayayna ku dhimanaysaa. filimkan waxaa qoray Kabtan Maajid, waxaana codeeyay anigoo Cabdulxaliim Cali, waxaana editgareeyay isla Kabtan Maajid. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, hana iloobin inaa YouTube-keena Kabtan Maajid subscribe saaratid si aad ugu daabatid muuqaalada kale. waana mahadsantihiin, maca salaama. midda kale asxaabta waxaa isku daydiin inaad booqatiin Instagram-kayga, insha Allah bartaas ayana kala socon doontiin muuqaalada kale, waxaana igu soo diri kartiin filimkii aad jeceshiin inaad soo khulaaseeyo. 100 kuna wax yar ayaa iiga dhiman, marka waxaa rajeynaa inaad kusoo biiri doontiin, waana arki doonaa jimcadan inta soo booqato. waxaan idinku soo dhaweey doonaa gacmo furan, waana mahadsantihiin. linkigiina waxaa dhigi doonaa commentiga ugu horeeyo, ama waxaa ku raadi kartaa Cabdulxaliim Cali. waa inoo muuqaalkan iyo muuqaalka xigo. fi amaanillah, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.